بسم الله الرحمن الرحيم وهبين بسبتيه او اي حد سو غليسا كسو دوادا markale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada barnaamijkan caawa aan idinku haynana waxa kamid ah Israa'iil waxay qiratay askar hor leh oo looga dilay Mareykanka Gaza waxa kamid ah sarkaal sare waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan iyadoo tani ay ku soo aadeyso xilli caawa bayaan ay soo saareen guutooyinka alqasaam ay ku shaaciyeen in ay gubeen taangiyo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin gaar ahaan howlgalo ka dhacay xaafadda al-Zaytuun Israa'iilna waxa la sheegayaa in ay dejisay qorshaha hareeraynta Gaza iyadoo la bilaabi doono in dadka laga daadgureeyo maalmaha soo socda goobahaasi gudaha Israa'iilna waxa ka socda kulamo xasaasi ah oo ku aadan arrimahan iyadoo maalinta Talaadada la sheegay in la go'aamin doono go'aanka ugu dambeeya ee Mareykanka Gaza dood adag ayaa caawa dhex martay wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich iyo abaaduulaha ciidanka Israa'iil iyadoo la kala qabtay labada nin haddaba maxay isku hayaan xog baan idinkaga haynaa waxaynu kula eegi doonaa Iiraan oo shaacisay in ay burburisay shabakad jawaasiis ah oo Israa'iil ku xiran gudaha Israa'iil hadaynu ku laabanana barnaamijyo ayaa la sheegaya caawa inay ruuxeen magaalooyinka Tel Aviv iyo kuwa kale iyadoo laga soo horjeedo dagaalka ka socda Mareykanka Gaza waxa la dalbanayaa in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo maxaabiistana la isku dhaafsado sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay haweeney aan wax khibrada u lahayn orod isla markaasna aan haysanba qalabkii loogu talagalay ayaa ku guuleysatay tartan orod waliba kaba waxay ku socotaa caag ah sheekadan xiisaha leh ee soo caawa waxaynu ku bilaabaynaa dhanka Iiraan halkaasi oo mas'uuliyiinta ammaanku ay xaqiijiyeen in ay burburiyeen oo ay ka hortageen isla markaasna ay fashiliyeen shabakad jawaasiis ah oo lagu tilmaamay argagixiso si hadalka loo yeeriyo oo Israa'iil la xiriirta arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmo ka hor booliis ka tirsan ciidamada booliiska lagu dilay gobol ku yaala waddankaasi Iiraan haddaba aynu eegno warkii ugu dambeeyay ee amuurtan mas'uuliyiinta laamaha ammaanka Iiraan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in la dilay 6 xubnood oo ka tirsan shabakadaasi lagu xiriirinayo Israa'iil waaxda sirdoonka ee gobolka koonfurta bari ee Sistan iyo Buluchistan ayaa warkan u xaqiijisay warbaahinta gobolka Sistan iyo Buluchistan waa mid ka mid ah meelaha ugu xasaasisan ee Iiraan halkaasi oo mararka qaar ay isku dhacaan ciidamada ammaanka iyo kooxo hubeysan oo ay ku jirto kooxda Jaysh al-Adil oo ay dawladda Iiraan ku tilmaamtay urur argagixiso maalinimadii shalay gobolkaasi waxa lagu qaaday weerar hubeysan 2 baabuur oo ay wateen ciidamada ammaanka weerarkaasi ayaa sababay dhimashada 5 askari oo ka tirsan booliiska Iiraan meel ku dhow magaalada Iiraan Shaar xilli ay fulinayeen howlgaladooda joogtada ah weerarkan ayaa dhacay kadib markii weerar gaadma lagu soo qaaday ciidamadaasi iyadoo ay ka dambeeyeen kooxo hubeysan maalmo ka hor xogayaha golaha ammaanka qaranka Iiraan Ali Larijani ayaa qiray in arrinta ku saabsan soo gelitaanka Israa'iil ee gudaha Iiraan ay tahay mid qatar aad u badan xambaarsan isla markaasna loo baahan yahay arrinkaas in la wajaho sida ay sheegtay jiriirada Britain ka soo baxda ee The Times Iiraan ayaa xirtay 10,000 oo qof kadib markii mas'uuliyiintu ay amar ku siiyeen ciidamada ammaanka in ay qabqabtaan basaasiinta la shaqeynaya Israa'iil kuwaasi oo ka caawiyay dilka taliyaal ciidan saynisyahano sare intii lagu jiray dagaalka 12 maalmood socday ee Iiraan iyo Israa'iil war kale oo la xiriira arrimaha Iiraan baarlamaanka Iiraan ayaa maanta wuxuu shaaca ka qaaday in si buuxda loo diiday wax uu ku qeexay siyaasadda reer galbeedka ama ka tanaasulka barnaamijka nuclearka Ibrahim Rizai afayeenka guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee baarlamaanka Iiraan ayaa ka shaqeeyay in Faransiiska hadda uu ka gudbay arrimihii la isku hayay ee barnaamijka nuclearka isla markaasna uu doonayo inuu xayiraad ku soo rogo barnaamijka gantaalada Iiraan isagoo dhaleeceeyay isku dayga reer galbeedka ah in Iiraan laga qaado cunaqabataynta arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Iiraan maanta ay ku hanjabtay suurtagalnimada in la soo saaro xayiraado kalena
maraakiibta cadowga ee ka gudbaya gacanka Hormuz. Mas-uul sare oo reer Iiraan ah ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay wargeyska Kayhan in xaaladaha hanjabaadaha iyo dagaalku ay tahay in ay la jaan qaadaan tillaabooyinka ay tahay in la qaado. isla markaasna waxa uu sheegay in kaararka qaran ee difaaca madax banaanida iyo tan qaranka ay tahay in la isticmaalo. haddaba xaaladan ayaa waxaa la sheegayaa Iiraan inay u diyaar garoobayso haddii wadamada reer Yurub cunaqabatayn ay saaraan Iiraan in markaa ay suurtagal tahay maraakiibtooda in laga mamnuuco gacanka Hormuz. weli arrintu waxay joogtaa wadahadal. maalinta talaadada ayaana waxaa la sheegayaa in wadahadallo ay yeelan doonaan mas-uuliyiin ka socda Iiraan iyo weliba midowga Yurub. laakiin qodobkan Faransiiska uu ku soo daray wadaxaajoodkii hore ayaa waxaa la leeyahay Iiraan waa ay ka booday. qodobkan wuxuu leeyahay waa in laga wada hadlaa barnaamijka gantaalada ee Iiraan. arrintan maanta warbaahinta Iiraan aad bay u faalloonaysaa. sidoo kale waxaa ka faalloonaya dadka shicibka ah oo baraha bulshada isticmaala. waxay leeyihiin gantaaladu waa awoodda keliya ee aynu leenahay, mana ka aqbalayno wadamada reer galbeedka oo Faransiiska ugu horeeyo in la joojiyo ama la burburiyo barnaamijka gantaalada. arrintan waxaa kaloo loo fasiranayaa inay tahay Israa'iil in ay la yaabtay awoodda Iiraan ee xagga gantaalada, gaar ahaan kuwa hypersoniga oo weliba la leeyahay qaar ka mid ah dagaalka looma isticmaalin. marka waxay u muuqataa bay leeyihiin Iiraaniyiintu arrintan inay tahay arrin Israa'iil ka dambayso iyo Mareykanka, laakiin wadamada reer galbeedka ay soo gudbinayaan. Iiraan waxay kaloo ku hanjabaysaa inay ka bixi doonto heshiiska la yiraahdo NPT ee xakamaynta nuclearka. haddaba xaaladan waxay ku dambayn doontaa wayna isla arki doonaa, wayna isla ogaan doonaa insha Allah. barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wixii ku soo kordha arrimahaas. waa hagaag warar kala duwan ayaa inoo soo socda, laakiin markan bala eegno xagga Ruushka, halkaasi oo la sheegayo in Ukraine ay qaaday weerar xagga cirka ah oo lagu beegsaday magaalooyin kala duwan. gudoomiyaha magaalada Moscow Sergey Sobyanin ayaa waxa uu sheegay in maanta ciidamada difaaca cirka ee Ruushka ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ku soo socotay magaalada caasimadda ah ee Moscow. waxaana la sheegayaa in haatan baaritaan ay ku hayaan burburkii diyaaradda kooxaha khubarada u leh arrimahani. waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo warbaahinta waddankaasi Ruushka, gaar ahaan wakaaladda wararka ee Rosavistia, ay sheegtay in mas-uuliyiinta dhowr garoon oo ku yaala bartamaha waddankaasi la xiray kadib markii weerar xagga cirka Ukraine ay soo qaaday. waxaana ka mid ah magaalooyinkaasi magaalada la yiraahdo Izhevsky, Nizhny Novgorod, Samara, Penza, Tumbov iyo weliba Olinovaysky. waxaana la sheegayaa inay jirtay cabsi la xiriirta khatar soo gaari karta diyaaradaha halkaasi ka soo degaya amaba kuwa ka kacaya garoomadaasi dayuuradaha. macluumaadkan ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo Ukraine ay sheegtay in 3 saacadood gudahood 32 diyaaradood oo ah nooca droniska la soo riday. waxaana la sheegayaa in tani ay ahayd weeraradii ugu ballaarnaa ee Ukraine ay ku soo qaado muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha waddanka Ruushka. waa hagaag wararkaasi iyo wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. militariga Israa'iil oo qirtay khasaare hor leh oo ciidankooda soo gaaray. sarkaal ayaa ka mid ah lagu dilay weerar ka dhacay marayka Gaza. Al-Qassam oo yara war ka soo saartay howlgallo taangiye ay ku gubeen, iyo weliba Israa'iil oo diyaarinaysa qorshe dadka marayka Gaza ku dhaqan, gaar ahaan bartamaha lagu barakicinayo iyadoo la bilaabayo duulaan ballaaran oo lagu hareereynayo marayka Gaza. sheekada ugu dambaysa waa hagaag xagga Gaza aynu ku bilownay. waxaa lagu soo warramayaa howlgallo culus inay dhaceen galabta iyo caawa. xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta, gaar ahaan garabka hubaysan ee ururka Xamaas ee Al-Qassam, ayaa war soo saaray. waxaana ay sheegeen in taangiye ciidanka Israa'iil ay leeyihiin ay ku gubeen xaafadda Shujaaciya. waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo dagaallo culus ay socdaan, Israa'iilna ay wada duqayn ballaaran. arrintan waxay salka ku haysaa qorshaha Israa'iil ay ku doonayso inay ku hareereyso magaalada Gaza. bayaan ka soo baxay Al-Qassam ayaa waxa ay ku sheegeen in dagaalyahanadooda ay ku guuleysteen
in ay gubaan laba taangi oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin isla markaasna yoolkoodii ay ka gaareen howlgalkaasi waxay kaloo sheegeen in ay arkeen ciidamo gurmad ah oo Israa'iiliyiin u soo gurmanaya ciidanka lagu galay Shujaaciya waxaana warku taas ku darayaa in howlgalkan uu sidoo kale la sheegayo in al-Zaytun howlgallo kale ay ka dhaceen waa isla bariga magaalada Gaza inkastoo Israa'iil gudaha ay u gashay aagag balaaran oo ku yaala Gaza haddana ilaa iyo hadda uma suurto gelin inay si buuxda gacanta uga dhigto marayka Gaza waxaana la sheegayaa in xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiintu marmar gantaal ay ka soo ridayaan deegaano ku yaala jiida Gaza iyadoo markuu intaas ku darayo inay ku beegsanayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka Israa'iil war kale oo arrimahan la xiriira hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa ka soo xigtay ila amni oo sheegaya in qabsashada magaalada Gaza ay bilaaban doonto kadib marka la dhameystiro go'doominta imika la doonayo in la saaro taasi oo la leeyahay waxay socon kartaa muddo 2 bilood ah iyadoo intaana lagu daray in ciidanka Israa'iil maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan shaqada ah daadgoreynta dadka Falastiiniyiinta laga daadgoreynayo marayka Gaza Israa'iil walaadku waxay sheegeen in taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir uu doonayo in qabsashada Gaza ay noqoto mid gaabis ah si loo ilaaliyo nolosha askarta loogana fogaado waxyeello soo gaarta maxaabiista ilo waraadku waxa intaas ku dareen in maalmaha soo socda ciidamada Israa'iil ay bilaabi doonaan shaqo lagu tilmaamay inay tahay daadgoreynta dadka Falastiiniyiinta dhinaca kale wargeyska Maarif ayaa waxa uu ka soo xigtay ila ka tirsan ciidanka Israa'iil in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uusan damacsanayn in la joojiyo howlgalka gaadiidka Gideon Labo kaas oo la sheegayo in ciidanka awood u siinaya qabsashada Gaza ilaa iyo inta guul laga gaaray Hamas waa si hadalka loo dhigay ku dhawaad 2 sano ereyga ah hal tilaabo ayay noo jirtaa guusha ayaa waxa isku bedeshay dagaal dheer ayuu leeyahay wargeysku dhinaca kale qoysaska maxaabiista Israa'iiliyiinta lagu haysta marayka Gaza ayaa caawa bannaanbaxyo waaweyn waxa ay ka dhigeen gudaha magaalada Tel Aviv iyo deegaano kale iyagoo dalbanaya in dagaalka la joojiyo isla markaasna caruurtooda aan loo horseedin geeri intii lagu jiray isu soo baxayada socda ama bannaanbaxyada ayaa waxa la sheegayaa in qoysasku ay dalbanayaan in arrinka ku aadan heshiiska xabajoojinta la qaato Israa'iilna ay tahay in arrintaasi ay si degdeg ah ku hirgeliso wararka Israa'iil sidoo kale waxa ka mid ah iyadoo ay socdaan kulamo adag ayaa waxa la sheegayaa in kulankii ugu dambeeyay ay yeesheen golaha kooban ee ammaanka iyo siyaasadda Israa'iil si xun ay markaasi gorodda soo galeen wasiirka maaliyadda Smotrich iyo abaadulaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir labadan ayaa waxa leeyahay waa la kala jiiday oo waa la kala qabtay arrintuna waxay tahay dagaalka ka socda marayka Gaza sida wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan oo labada nin ay si weyn isku khilaafsan yihiin waaya telefishinka kale 12 ayaa warkan tabiyay waxaana la sheegayaa sidoo kale maalinta Talaadada in kulan dambe la iskugu imaan doono kaas oo lagu go'aamin doono qorshaha marayka Gaza xaaladda ayaa waxa la sheegayaa inay tahay mid aad iyo aad u adag gudaha Israa'iilna waxa ka socda doodo adag wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil oo ka mid ah wasiirada xagjirka Itamar Ben-Gvir ayaa isaguna si ba'an wuxuu u weeraray Benny Gantz oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka kaasi oo jeediyay hadallo uu ku darayo howlgalka ka socda marayka Gaza isla markaasna uu leeyahay waa in si degdeg dagaalka loo joojiyaa oo maxaabiista loo soo markaasi loogu bedeshaa kuwa Falastiiniyiinta waa yahay xaaladdu ay adag tahay waynu arki doonaa wixii soo kordha caawana waxa la sheegayaa duqeyn ba'an Israa'iil inay wado sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa ka mid ah qasaarihii ugu dambeeyay ciidanka Israa'iil ka soo gaaray marayka Gaza goorsii horeysay oo maanta askari kale oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa lagu dilay howlgallo ka dhacay marayka Gaza waa tahay imika waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin hayaa sheekada ku saabsan haweeney wax khibrada aan u lahayn orod oo weliba kaba caaga ku ordaysa ayaa tartan maratonka ama orodka ku guuleysatay haddaba aynu eegna sheekadan oo ka dhacday waddankaasi Mexico haweeneydan 30 jirka oo lagu magacaabo Candelaria Rivas Ramos
ayaa taariikh samaysay kadib markii ay ku guulaysatay tartan orod oo 63 kilomitir la ordaya oo ka dhacay magaalada Guayaquil ee Mexico iyadoo aan lahayn baaliyad haweeneydani wax khibrad ah isla markaasna aysan haysanba qalabkii ay ku ordi lahayd waxay ku orday iyadoo xiran kaba gacmeed iyo weliba dharka dhaqanka ee qabaa'ilka asaliga ah ee loo yaqaano Raramuri tartankan oo socday 7 saacadood iyo 34 daqiiqo Reyes waxay ku guulaysatay kaalinta koowaad ee qaybta haweenka maahana xagga rag laakiin dumarkii bay cagaha ugu been sheegtay haweeneydan oo ka soo jeeda buuraleyda Chorache warigeed hore ugama aysan qayb qaadan wax tartan orada laakiin bulshada ayaa ku dhiirigelisay iyadoo ay weheliyaan eheladeeda qaar ka mid ah sida saygeeda ayaa waxaa la sheegayaa in haweeneydan ay 14 saacadood ka qayb qaadanaysay orodkan iyadoo markaana la sheegayo inay ku guulaysatay biladan halkan idinkaga muuqata warigeed tartan ma aysan gelin kaaga sii daranay xitaa kabihii loogu talagalay ma haysato haweenkeena xagga dambe soo ordayaano haweeneydan ayaa cagaha ugu been sheegtay oo ku guulaysatay tartankii waa dhiirigelin waxa lagu leeyahay dadaal waad gaari doontaa waana sababta sheekadan aynu soo qaadanay aad baad u mahadsantihiin inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantahay daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo